BIT 08 BIT 08 BIT 08 BIT 08 BIT 08 BIT 08 gudoomiyaha jaamacadda simad al-ustaad daahir xasan cabdi gudoomiyihii hore ee kulliyadda computer science-ka haddana wakiil gudoomiyaha hadda xilka uu soo wakiishay haddana ah madaxa xiriirka bulshada ee jaamacadda simad al-ustaad cabdikariin muxudiin axmed gudoomiyaha ardada ka qalin jabiyay jaamacadda simad al-ustaad mustafa maxamed macallim dhammaan marti sharafta kaleeta ka soo qayb gashay bahda BIT 08 inta nagala socota internetka dhammaan salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh maanta waa kulan weyne BIT 08 ay iskugu yimaadeen dhammaanteed waxay ka dhigan tahay muddo 6 sano kadib in fasalkii aan wada fadhino oo maanta saan aan ku wada fadhino fasalka la dhihi jiray BIT 08 BIT 08 waa fasal jaamacadda simad ka tirsanaa kulliyadda computer science ka tirsanaa kana baxay 2012 jaamacadda dhameeyay ilaa xilligaas ilaa hadda xiriir leh oo sidii walaalo ku ah oo iska warqabo siduu ustaad yaasiin sheegay malaha waxyaabahan nasukeen hayo ee fasalada kaleeta u kala daateen waxaa ka mid ah xilliyihii cuslaa aan soo marnay duruufta adkeed aan soo marnay waayo waqti aan wax baranayna waxay ahayd waqti aad u adag oo dadku ay qaxayn dhibaato dhaqaale ay jirto nabadgelyo darre ay jirto shaqo la'aan ay jirto agabka aan wax ku baranayna ee kombiyuutarka iyo wax la midka ayna la awoodin waqtigaas nin reerkiisa ku tiirsanaa maysan jirin innagaa isku tiirsaneen markaan wax baranayna waayo sidaa la socotiin waxaan ahaan jirnay gurub nin walbaaye ninka ku gurubka ee asxaabtiisa leeyahay guryihiisuu saaxan jiray halkaasaa dharka noola wada dhaqi jiray halkaasaa cuntada ku wada cuni jirnay marka waxaan nahay dad soo wada qaybsada xabad muufa soo wada goostaan nahay marka waxaa waaye dadka kaleeta waa iskaga dhownahay aadan iskaga dhownahay gabar iyo wiilba meel kastoo ay joogaan khudbad dheer uma soo istaagin inaan ka jeediyo laakiin waxaan rabaa macnaha inaan idin tusiyo idin iftiimiyo gabdhaha magaalada ka jira iyo gabdhaha BIT 08 macnaha difference-ga u dhaxeeyo waxaa waaye alxamdulilah waxaan ku faani karnaa haysanaa sababtoo ah waxaa waaye inta badan gabdhaha markii jaamacadaha la dhameeyo ama waxay ku mashquulaan shaqo ama yurub aadis ama ilmo dhalow xataa waxayna ka baxaan qadka macnaha bulshada inteeda kale ka go'an laakiin annaga alxamdulilah aadan iskugu xirannahay inta wiilasha goynayaan aan goynaynaa weliba mararka qaar waxaan dhihi karnaa in annaga bushgarayno wiilasha oo arrimaha qaar annaga aan dhahno arrimaha qaar annaga aan dhahno intaasaa loo baahan yahay maxaa uga aaminsantihiin waxaas aan qabanno marka alxamdulilah gabdha aan ku faani karnaan haysanaa anoo ku hadlayo codka gabdhahana waxaan yacni ku dadaalaynaa inaan hadda waxaan maraynaa 6 sano oo banaanka aan joogno ilaa 4 sano jaamacadda dhiganayna 10 sano kaliya inaan insha Allah 6 years anagoo jirna xataa aan horumarka iyo isku xirnaanshaha galaaska aan ka shaqeyno bale in xataa wadanka inaan wax u qaban karno isku dayno insha Allah de warkan ma idinku sii badinayo aad u mahadsantihiin anigu waa idinka tirsanahay rag badan oo meesha kamid waa isnaqaanaa oo waa isku xirnayn dadka aan isugu dhaweynna waxaa ka mid ahaa yarkii mataqaanaa ugu dambeeyey ee idinka geeriyooda allah u naxariiste maxamed axmed elka case waxaan isku barannay wax kale ma ahayne waxaan isku barannay walaalkay yunis aan isku barannay waxaan ahaynay maalintaan isbarnay ilaa hadda qof sida walaalkoo kaleta ah waa bogaadinaa waana soo dhaweynayaa sida isugu xiran tihiin walaalahay oo mataqaanaa walaalkay booskiisii ii joogaa tihiin kulligiin dhammaantiin hadda anigana hadda kadib waa idinka tirsanahay oo waxaan ah member aan haddii alla insha allah assalaamu calaykum ardayda maanta 6 sano kadib horena u wada joogtay welina wada joogta inay tahay shaqo adag u baahan in la sii joogtay
weliba sloganka aad samaysateen oo saddexda shay ka kooban oo ah wadajir iyo walaalnimo iyo tacliin inuu yahay wax maanta aan u baahanaa dhammaanteen. Guddoomiyaha runtii BIT 08 waa u mahad celinayaa isku hayay intaanu arday ah magaalada ay wada joogaan dibadda ay wada joogaan runtii markii lagu soo casuumay farxad gaar ah ii ahayd aniga inaan group kala barto oo mataqaanaa ka mid ah baajadka jaamacadda ka qalin jabiyey. waxaan rajeynaynaa haddii la yidhaahdo waxa aan rabna ay tahay in dhammaan waxaa ka qalin jabiyey jaamacadda simad baajis ah inay kulamo noocaan oo kale ay yeelaan kadibna jaamacaddeena aan wax tarno. waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo gabagabeeyo reer BIT sida aad u dhisan tihiin oo u qurux badan tihiin inaad BIT keliya anfacdiin maaha. waxaan rabnaa jaamacaddeena anfacno. jaamacaddeena waxaan ku anfici karnaa inaan u jeedino talooyin. inta badanna alumnayga waxay qabtaan waxay tahay inay jaamacadda ay u shaqeeyaan maadaama ay yihiin barodhagti jaamacaddu daysay oo suuq ku jira. dhammaantiin waan salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. gudoomiye daayana raba maanta inaan ku marqaatiyey wax kastoo extra curricular oo jaamacadda ka jiro markii laga soo noqday maxaa la dhahayay waqtigii adkaayo qaxa fasalkii bilaabay nimankan waa banooni in la dheelo kuliyaddeena bilaabay association in la sameeyo oo faculty leeyahay kuliyaddeena bilaabay markii da nimankan taariikhdaasi leeyihiin jaamacaddana indhe u kala qaaday ayaan dhaweyd wasiirka sawir uu soo diray oo aada loo wada quslaayay sawirkaas waxaan u malaynaa waxaan sportskii aan ku qaban jirnay degmada xamar jajab oo nimankan ay agaasimeen inuu ahaay qosolka uu qoslayo wasiirka aad u jeclaa markaan dhahno waxaan leenahay sports noo imaaw waa noo imaan jiray oo naga tegi jiray hambalyo iska warqabkan 10 sano waayaan u malaynaa 2008 ay ahayd dad badan oo kamid ah waxa xasuustaa jaamacadda anaa geeyay intaan israacna aan jaamacadda ka soo qoray maanta inaad 10 sano kadib aad isla joogtiin oo aad is xusaysiin waa farxad gooniye leedahay. waxaan rajeynayaa inaad saas sii wada joogi doontiin insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullah. dhammaan waxaan si gaar ah rabaa inaan u salaamo gabdhaha BIT 08 oo runtii ayagana aad u abaabulan soona camiray meesha aad iyo aad u wanaagsan. aniga marka waxaan rabaa inaan hadalkayga u badiyo inaan bal warbixin kooban aan idinka siiyo jaamacaddii aad ka soo tagteen 6 sano ka hor. ardayda jaamacadda simad ka qalin jabisay ee shahaadada jaamacadda simad haysata shahaadada koowaad waxay maraysaa 5,540 arday. waa inta shahaadada haysata ilaa 3,000 arday ku dhowaad oo undergraduate-na hadda waa dhigtaan ilaa 200 ku dhowaad oo postgraduate-na waa dhigtaan. waxaan rabnaa marka in jaamacadda ay ku soo laabataan BIT 08 laba arrimoodna ay ku soo laabataan. kow waxaan bilownay program even weekend program ah oo si dabacsan loo qaadan doono oo qaanuun ah faculty of law. dabcan sida guddoomiyaha BIT 08 uu sheegay tacliinta waa continuation in la sii wado aad ay muhiim u tahay annagana diyaar aan u nahay. waxa allaale wixii u baahan tihiin waa idin kala qayb galaynaa. gaheer campus inta jooga ku yaala postgraduate wuxuu ku yaala area number 4 campuska weyna waa idin diyaar in aad bil kasta ama labadii biloodba mar kasta hasku timaadaan oo qof walba cilmiga iyo khibradda iyo wixii soo waasahay la isla sameeyo sida ay Mareykanka sameeyaan. Mareykanku waxay waxyaabaha ay ku najaxeen waxa kamid ah dadka professionalska ah oo amba saaxiibada ah amba network iskula jira bishiiba hal mar ayaa qof walba qadadiisa ay iibsana. marka wixii fursado jira la isla wadaaga wixii aqoon ahoo la soo wajirsa la isla wadaaga. marka meeshaas waa meesha ay faa'iido ku jirto. marka in kulamo gaagaaban oo kulan weynahan ka horeeya oo adinka isku warsanaysaan oo xogta iyo aqoonta isku in la abaabulo. aad iyo aad u mahadsantihiin. waan idinkaga mahadcelinaynaa inaan uga casuunteen deeqsinimada aad samayseen waqtiga aad soo horteen intaasoo dhan. waxaan rabaa marka inaan kusoo gabagabeeyo BIT 08 bal inay naga caawiyaan siduu Musab sheegay sida alumnayga loo nooleeyo. waxaa kaloo muhiim ah gudoomiye Musab xilkii waa ka dhammaada u malaynaa in BIT 08 qof ka tirsan oo xilka loo doorto oo sida BIT 08 ay u nooshahay oo ay caalami u tahay caalami looga dagaalamnayo in lacag la aruuriyo xataa jaamacaddu waxay diyaar u tahay in xataa lacag ku bixiyo
soo u noolaato aad iyo aad waa mahadsantihiin waa mahadsan asalaamu calaykum runtii aad iyo aad bay farxad iigu tahay inaan idinkala soo qayb galo barnaamijkan bahda BIT 08 Mustafa ilmaan hadal kuma jiro oo gudoomiyaha ardada qalin jabisay bahda BIT 08 wiilal iyo gabdho duhur wanaagsan BIT 08 aniga intaan ka aqaanay runtii Ustaad Abdikariin waa sheegay markii aan anaga jaamacadda imid horta sanadkii labaad ay ahaayeen soo saasma active ahaayeen runtii waana nala shaqeeyeen marxaladii transitionkaayada jaamacadda laga rarayay Simad Institute to Simad University dadkii aad noola shaqeeyay BIT 08 waxyaabihii ay nagala shaqeeyeen waxaaba ka mid ahay su'aalaha ugu badan oo ah jaamacadda miyaan ku qalin jabinaynaa mase institute aan ku qalin jabinaynaa horta waxaan ku qasbanaanay marka shahaadada inaan boobsiino si ay ayaga iyo dad kale oo ka mid ah ay ugu qalin jabiyaan waa soo taagnaayeen marka su'aal walba ku weydiinaa annaga horta ma Simad University aan ku qalin jabinaynaa bas Simad Institute su'aashaas aad aan u xasuustaa yani waxay ahayd waxyaabihii nagu dhiirigeliyay in shahaadada waqti munaasiba la soo saaro waa ogtihiin shahaadada in la soo saaro hawl aad u dhib yar maaha waxaan aaminsanahay in haddii ilaa yiraahdo wadajirka BIT 08 sida uu sheegay gudoomiyaha aniga de groupkana si baan asxaabuna intiisa badan runtii qarar iga lulumay waa jiraan laakiin waa ka warhayaa kor gaar ahaan 08 iyo 09 yaa dadka aad ii soo xiriiriya ugu badan marka aad iyo aad u mahadsantihiin gabdhahana si gaar ah ugu mahad celinayaa waa ogaayo maanta waa jimco de jimcaha maba gabdhaha in la soo wado maba howl fudud ma marka aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale guddoomiyahana waa mahad celinayna waa mahadsantihiin